marka la kusoo dhawaada Axmed Jane Films maanta waxaa idin tusayaa filim la sameeyay 2009 Jim Carrey oo ah qamaaristo weyn daawo oo taxadir waxa ay u ahayd maalin madow caasimadu markii Kazantaka Hayudu oo ahaa la taliyaha wasiirka dhaqaalaha ayaa isugu yeeray dhammaan shaqaalaha waxa uu weydiiyay yaa leh awood dhaqaale ayna bixiyeen jawaabo fara badan Rico Indu waxa ahayd marwada ka wakiilka ah dumarka shaqaalaha si walba ha ahaatee Unique Tagawa ayaa sheegay in awood ay u leeyihiin dhaqaalaha waddanka oo dhan in ayaga ay difaaci karaan sidoo kale waxa uu sheegay in shaqal aan baasan ay haystaan dhammaan dhalinyarada ku nool dalka Japan muddo kadib Raja Itu ayaa watay nolol maalmeedkiisa waxa uuna tagay dukaan si uu uga iibsado cunno waxayna u ahayd maalin xun waxa uu ka caroodaa gawaarida ay leeyihiin dadka lacagta leh si canshuurta ma bixiyaan dalka si adagna ayayna u shaqeeyaan koox waardiyaha ayaa isla markii soo bursaday kana waxaa lahayd Rinko waxayna u xakaysay xafiiska si ay ula hadasho kadib Kaji waxa uu saxiixay heshiis waqti dheer ah la weydiiyay gaarigii uu dhibaateeyay waxa uu sheegay inuusan awoodin inuu bixiyo lacagtaas Rinko waxa ay la galaysaa heshiis waxa uu ka qayb galayaa qamaar waxayna kula talisay inuu ka guuleysto haddii uu guuleystana waxa uu ka badbaadayaa dhimasho talada ay siisay Rinko Kaji waxa uu ka fikirayaa sidii uu uga faa'iideysan lahaa fursadii ugu dambeysay ee noloshiisa Kaji wuu aqbalay hore subaxii Rinko waxay sawirkiisa Kaji ku dartay liis tiro dad ah oo diiwaan gashanaa company Kaji ayaa soo gaaray goobtii lagu dheelayay pokerka ama qamaarka Yukio oo martigeliyaha waxa uu sharaxayaa shuruucda looga baahan yahay qofka dheelaya qamaarka yeeraanka waxaa la siinayaa hal xidig oo qiimihiisu dhan yahay 3 milyan oo dollar qofkii guuleystana company waxa uu ballan qaadayaa nolol raaxo leh inta noloshiisa ka dhiman yeeraankaas waxaa la siiyay 12 warqad oo ay ku jiraan kaararkii ay ku dheeli lahaayeen gameka kasta ay guuleystaan waxa ay xidig helayaan dadka ka soo horjeeda waa in isticmaal 12 kaarood ee ay ku helaan 3 xidig muddo 30 daqiiqo gudahooda wax su'aalana lama ogola oo uu dhameeyay sharaxaadda waa uu isaga tagay meesha waxa uu ku dhahay bilaaba gameka man ciyaartoydu waxay ereyseen ciyaartoy ay la ciyaaraan in waxa sahlan George Funai aan marnaba laga adkaan karin haddii ay isticmaalaan kaarar isku mid ah oo ay galaan barbar labadooduba midkoodna ma guuleysan doono Kaji wuu aqbalay gamekana si caadi ah ayuu ku bilowday labadooda waa is caawiyeen midkoodna ma uusan guul dareysan daqiiqadii u dambeysay waxa uu saartay 2 xidig waxa uu hal xidig iyo hal kaar uga tagay Kaji wuu carooday waxa uu tagay kaarkiisa waxa uu feeray Funai sababay dhiigkii imaada sankiisa inuu ku halaabo kaarka kuritiga ayaa imaaday waa ayna kala kaxeeyeen Funai ayaa u sheegay qof walba عنده كهايو كاركي جاجي أو ندونه يو قف كيبسدو جاجي أيا سعر له وأو كقيلي وحاو نقول يا توك خيانة ولا آيات هاي وحاو قادا أنت أسميفونا إن تهاي خيانة عد جو شدة أيا لو حرق ما دام اسكو أدي لبضانين وح كسر جو شرعية وحكير 8 ساعات مركي أهد فونا أيا وحاو شيء إنه شاعنا فكرة دي وقدم بيسي وقف كسكو جلسان كرو قف كستوا أو قبلي حتى كاجي أو أسوي لي ما ذي فكرة مكاسي كدوين فكرة دي هوري waxa uu isku qasayaa kaararka walba uu cadaalad u helo kaarkii dhig lahaa waxa uu ku soo aaday Kaji waxa uu markaa ka codsaday inuu ku aadiyo Funai isagoo waliba haysta hal xidig inuu ku guuleysan waxa uu helayaa 3 xidig waxa uu rajaynayaa guul maadaama uu og yahay kaarka ugu dambeeyay ee hoostay Kaji